Bismillahi Raxmaani Raxiim. Daawadan waxaa loo yaqaanaa thyroxine. Waxaa loo isticmaalaa xanuunka qanjirka thyroidka ee hawlgabsan. Waxaa la qaataa subaxii quraacda ka hor caloosha oo faaruq ah. Bil kasta oo Ramadaan markii la gaaro waxaa la weydiiyaa daawadan bisha Ramadaan sidee loo qaadanaa maadaama la sooman yahay. Daawadan saddex mid ayaa samayn kartaa. In markii la afuro oo saa loo adimaba aad daawada la qalid biyana ku cabtid. Kadib aad salaada dukatid oo aad u sugtid nus saac ilaa 40 daqiiqo kadibna aad cuntada cuntid. Midda labaad waxaa waaye haddii aadan sugi karin inaad afurtid oo waxaad cuni lahayd aad cuntid kadibna aad sugtid ilaa ay caloosha faaruq ka noqonayso taasoo laga yaabo 3 saac ilaa 4 saac inay qaadato kadibna daawada aad la qalid adoo gaajeysan. Midda saddexaad waxaa waaye haddii aad tahay dadka dhaqso saxuurta ama aadan saxuuranba inaad qaadatid salaada subax ka hor laakiin waxaa shardi ah in saxuurtaada iyo daawada ay u dhaxayso 3 saac ilaa 4 saac.